dhalinyaradan oo tiradoodu ay kor u dhaafayso 150 qof waxay maanta ka nasanayaan sanado badan oo dhibaato nooc kasta ah loo geysanayay waxaana ka muuqata farxad iyo jacaylka ay u qabaan inay dalkooda ku dhameystaan nolosha inteeda kale waxa kaalin wanaagsan ka qaatay soo celintooda dawladda Soomaaliya kadib dalab ay u jeedisay xafiiska qaxootiga ee qaramada midoobay iyo hay'adda socdaalka adduunka daayartan oo intooda badan hami ka lahaa inay gaaraan qaaradda Yurub ayaa dhibana u ahaa koox burcad ah oo ka ganacsata dadka tahriibaya kuwaas oo lacago xad dhaaf ah ka qaada mid kasta oo kamid ah dhalinyaradana waxa uu la kulmay jirdil sida ninkan oo ku naafoobay waxaan la hadalnay qaarkood maanta kama shaqeyn karo mana soo koobi karo dhibaatooyinka aan ku soo marnay ama dhibaatooyinka Liibiya naga soo gaarsiiyeen wallahi waxa aan halkan ku soo koobi karay maanta ma waxaan jeclaysanay ama go'aan isla qaadanay Soomaali badan oo nahay inaanu tagno dalkeeyagi oo hodan ahaa oo markii hore daniyow naga dhaqaajisay kulay duruufun ba naga dhaqaajiyay markii hore wallahi waxaan u jeeday niman aanu walaalo rumanhay oo aanu meel wada seexan jirnay oo wax wada cuni jirnay ayaa koronto lagu dilay taa waxa ka sii darnayd 24 hours xabad roodhiya ayaanu biyo ku dhuuqi jirnay xabad rootiya ayaa waa 24 hours afar saacadoodba mar ayaan la siin jiray mid roodhiya oo biyo ku dhuuqi jirnay safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub lana socday dhalinyaradan ayaa sheegay in duruufo badan ay kala kulmeen maxaabiista ka dawlad ahaanna ay ku guuleysteen dib u soo celintooda runtii waxay nagu qaadatay muddo aad u dheer ah inaan soo daad gureyno waxay kala yimaadeen magaalooyin waxay kala yimaadeen xabsiyo kala duwan xabsiga sida xabsiga Tajora xabsiga maaragtay Tariiqo Tariiqul Mataar Nusara iyo Janzuur magaratay marka xisaabta beesha xabsiyadaas aan ka keenay marka dhalinyaradan runtii waxay ahaayeen dhalinyaro magafa intay gacanta u galeen oo lacagtii laga qaatay kadib markii lacagta laga qaatay badii ay galeen badii markay galeen dawladii ay soo wada qabatay oo xabsiyadii la keenay deeqo Yaasiin Xaaji Yuusuf waa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxay sheegtay inay ku dadaalayaan sidii dhalinyaradan Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen fursado shaqo loona caawin lahaa diyaar u nahay dawladda ahaan inaan maaragtay waddankoodii fursado inaan ka siino uga abuurno shaqo iyo waxbarashada iyo deegaanba waxaa lagu hayn doonaa xarunta dadka dib uga soo noqonaya Liibiya oo ay gacanta ku hayso hay'adda qaxootiga qaranka muddo 6 bil ah balse xilligan oo ay magaalada yimaadeen tan ugu darani waa in ay qoysaskooda la hadlaan munasar ahaan waxaan ku caawinayaa taleefankayga si ay qoysaskooda ula hadlaan inta ay gaarsiiso lacagta iigu jirta halo أمنا محمد ورا السلام عليكم ورا القاعد اسمه فيعنا وفيعنا يا ورا القاعد اسمه رويد بس ودقني نبض قبا وإمادي هاي معنا نوع عفمر وعدوا نبض إمد الحمد لله ودن كيجا جوا فرحدي دين ولا ما قياسي كرو حبين كده دارت هوي هل كعد مرت سرابان هوي والله عنكو قليا هوي هل مراد عيسى هوي فرمود لغو نقضاي هوي hagar ee boqomad hooyo hadda aakhirkaagana hooyo halka lagu nimcaystiyo hooyo hooyigii jannada joog hooyo hooyadii macaanay hooyo Munasar Maxamed Universal Muqdisho